baraha bulshada ayaa si weyn loogu maadaysta dadka qaarkiisna waxa ay la noqotay arrin naxdin leh kadib markii madaxweynaha dalka Zambia oo khudbad u jeedinayay ciidamada qalabka sida ee dalkaasi uu sirajooga ka dhacay mucaaradka oo ka faa'iideysanaya xilliga doorashada oo soo dhow waxay baraha bulshada ka bilaabeen olole madaxweynaha ay ugu yeerayaan inaan caafimaad qabin oo aan astaahilin mar kale inuu isku soo taago xilka madaxweynaha dalkaasi Zambia madaxweynaha dalka Zambia Edgar Lungu waxa la xaqiijiyay inuu sirajooga ka dhacay xilli uu khudbad u jeedinayay ciidamada qaranka dalkaas oo xaflad loo sameeyay axaddiina soo dhaaftay caasimada dalkaasi Lusaka waxa la sheegay inuu qabo dariiska ciidanka isla markaasna uu tabaryari iyo wareer darkeed sirajooga uga dhacay taasoo dad badan ay u fasirteen inuusan caafimaad qabin dawladda dalka Zambia oo ka jawaabaysa buuqa baraha bulshada looga furay ee caafimaad darrada madaxweynaha iyo inuusan u tartami karin doorashada soo socota ee dalka Zambia ayaa waxa ay bilowday inay shaaciso in xaaladda madaxweynaha ee caafimaadkiisa ay tahay mid wanaagsan xogayaha golaha wasiirada Simon Mati ayaa soo saaray war uu ku sheegay in madaxweynuhu caafimaadkiisu wanaagsan yahay uuna gutay howlihii qaranka ee uu hayay Mr. Mati waxa uu sheegay in madaxweyne Lungu uu markiiba ka soo kabtay wixii dhacay dhibaatadan oo kale madaxweynaha waxay la soo darisay sanadkii 2005 ayadoo taasi lagu micneeyay mid ka timid dhanka hunguriga madaxweynaha dalka Zambia oo waqti badan doonayay inuu dalkani sii xukumo wuxuu mar kale doonayaa inuu u tartamo xilka madaxweynaha wadankaasi Zambia ee loo dareeri doono 12 bisha Agoosto ee sanadkan ololaha doorashada ayaa dalkaasi ka socda arintani waxa ay ku noqotay madaxweynaha dalka Zambia mid dhawarjab ku ah mucaaradku dadka shacabka waxay ku boorinayaan inaan la soo dooran mar kale madaxweynaha talada haya oo ay sheegeen inuu yahay nin xanuunsan oo aan awoodin inuu guto shaqada qaranka uga baahan yahay marka la gaaro xilliga ololaha waxa ay mucaaradka ku fiirsadaan madaxda markaasi talada haysa arrimaha la soo darsaa oo ay ka mid tahay xagga caafimaadka iyo sidoo kale qalalaadka kale oo ka dhaca taas oo ay ku saleeyaan ololahooda doorashada si ay uga guuleystaan kooxda markaasi maslaxa saaran dalka Zambia oo doorashadiisa dhawaan loo dareerayo mucaaradku waxa ay gadayaan in madaxweynaha dalkaas uu caafimaadkiisu yahay mid liita sidaas darteedna loo baahan yahay in dadka shacabka ay doortaan qof wanaagsan caafimaadkiisuna hagaagsan yahay gudana kara shaqada qaranka ee saacad walba looga baahan yahay mar walba iyo saacad walba halka nagala soco page-kan like saar follow siina share garee wararkeena mahadsanid